intaasi kadib madaxdii goobta ku sugnayd oo isugu jiray wasiir ka tirsan xukuumadda xildhibaan ka tirsan golaha shacbiga maamulka gobolka Banaadir saraakiisha ciidamada ururada haweenka iyo waliba dhalinyarada isla markaana uu horkacay madaxweynaha dalka iyo shacabka ka socday 17 degmo ee Muqdisho ay ka kooban tahay oo isgarabsanaya ayaa socda ka soo bilaabay taalada SYL waxaana mararka qaar loo jeeday madaxweynaha jamhuuriyadda oo u gacan haatinaya shacabka wadooyinka isugu soo baxay madaxweynaha dalka oo shacabka kula hadlay taalada daljirka daahsoon ayaa ka hadlay doorka dhalinyarada kaga aadan dalkoodii Soomaaliya amaan dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan leenahay hambalyo maalintii maxaan ku 15 May maalintii dhalinyarada maalintii xurriyadda maalintii halganka maalintii magaca Soomaaliya oo kor u soo kacay waxaan leenahay waa maalin ku daysi mudan waa maalin inaan maxaan ku yiraahdaa aan raacno taariikhdaas hore oo naloo dhigay mudan waana raacaynaa haddii aan la yiraahdo dhalinyaradu meel kasta ay joogto waxaan leeyahay hambalyo dalka iyo dibadiisaba waxaan rabaa dhalinyarada Soomaaliyeed inaan kula dardaarmo oo u sheegno dalka dhismihiisa ayaga ayuu sugayaa xooggii dalka dhisi lahaa waa ayaga xooggii sharafta iyo haybadda soo celi lahaa waa ayaga xooggii magaca Soomaaliya sidii shalay 1943 dadkii dhalinyaradii joogtay siday kor ugu qaadeen maanta la idinka rabaa in kor u qaadaan fariinta maanta waxa waaye dalkaaga dhiso dhalinyaroy fariinta maanta waa dhalinyaroy dalkaaga dhiso xoog aan ahayn adiga ma qabtid xoolo aan adiga dadkaan ma laha xooggiina u xoog ah aqligiina u aqli ah aqoontiina u aqoon ah halhayskeenna waxa waaye dhalinyaro dalkaaga dhiso dalkeena dhisnaa noo ballan ah shacabkii maanta isugu soo baxay munaasabada 15 May ee ku sugnaa taalada daljirka daahsoon ayaan waxaan kala sheekaystay dareenkoodii maanta iyo 15 May aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta 15 May maanta in la xuso maalintii dhalinyarada Soomaaliyeed ee SYL farxadeedu kulliba lama soo koobi karo wallahi qaabkaan u imaan waxay tahay waa munaasabad weyn waxaana keenay wadaninimo daacad ah inaan wadankeena iyo dhalinyaradayna aan xusno barnaamijka oo maanta ah